وعبد الله حاشي سيد قدوميها حزبي دقائق الصوماليات أما موف أون صومالي بارت إسلام مركزنا مشرح مدحوينه لابو كون لباتن إيه لابو waxaan booqasho ku tagay gobolka Hirshabeelle magaalada Beledweyne deegaan doorashadooda ay tahay 25 kursi meeshaas waxaa markii ugu horeysay oo aan la kulmo dhaqanka iyo caadada dadka shacabka iyo maamulka meesha maamul ma jiro madaxweyne Cali Guudlaawe wuxuu ka bilaabay gudoomiye gobol shaqo Soomaali oo dhan dawlad Soomaali wuxuu ku tagay ilmaadeernimo kadibna wuxuu si dalacay madaxweyne ku xigeen kadibna wuxuu ku farmaajo waxa ku fadhiisay kursiga madaxweyne ku xigeen dabageed shaqadii ugu horeysay oo dawladda oo bilaabay gudoomiye degmo gobolka Hiiraan tii ugu ku xigtana waxaa noqotay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle labadooda aqoon ama aqli ama diin waxba isma dhaamaan waa isma dhaantay iyo dhashood waxaa marka ayaga abuurtay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha xilkiisa dhamaaday hal sano iyo dhowr bilood xaaraan ku fadhiya xafiiska dowladda Soomaaliyeed sidoo kale gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka Mawlid Mataan aan u maleynaya nin aqoon-yahan oo dhalinyaro oo fiican waasna wuxuu ku jiraa jeebka farmaajo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Hirshabeelle waxay ilmaadeer yihiin Cali Guudlaawe iyo Cali Jeyto sigana aqoon iyo aqli iyo diin kala reebaysa ma jirto ani waxaan ahaa kursiga beesha xawaadle ee Yabardiga ayaan u tagay odayaashii dhaqanka xor maahan beeshii kuraasta inay soo dalbatay la rabay xor maahan meeshii waxaa imaaday inay u shaqeynayaan maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha xilkiisa dhamaaday ee hal sano iyo dhowr bilood xaaraan ku fadhiya xafiiska Soomaaliya isla markaasna lacagtii loogu talagalay ummadda Soomaaliyeed ee abaaraha biyo dhaamin iyo raashin iyo dhib la rabay in looga saaro inuu ku taxalluqay ku mashquulay inuu ku soo saarto xildhibaano asiga u nacamleeyo waxaa mahad gaara u celinayaa laba maamulka Jubbaland iyo maamulka Puntland oo mar hore toos ku qabtay maxamed cabdullaahi farmaajo kana diiday danaha gaarka ah uu leeyahay inay ka fushto labadaas gobol maamulka Galmudug kan Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaan ku dhahay waxay qaateen lacag xaaraan waxay soo saarayaan dad xaaraan isla markaasina ummadda Soomaaliyeed waxay ka galeen dambi maalmaha kamida macal madaxweynahooda farmaajo iyo ayagaba maxkamad la keeni doono kuleyba on 4 sano kadib miya 5 sano kadib miya 10 sano kadib miya waa maxkamad sugayaal way ummadda Soomaaliyeed waa ujeedaa waxa taas si dheer hal shay oo xalaal ah inta qofan soo sheegay oo dharka ay gataan waa xaaraan markay ilaahay hortaagan yihiin cuntada calooshooda ku jirto waa xaaraan guriga ay degan yihiin jaarka ay ka bixinayaan waa xaaraan haddii ayaga lahaynba sadaqo ma gasho xoolahooda ninka laaluushka baxsho iyo ninka qaati waa isku dambi ummadda Soomaaliyeed doorasho meeshaas kama jirto Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan waxaa argusasho xoog leh meesha ku hayo Cali Guudlaawe iyo dabageed ciil badan ay wax u qabaan reer Hiiraan meeshii ilmaadeer noqotay maamul dhan eberkayn diin eberkayn wax ummadda Soomaaliyeed nimankaas lagu qaadan karo ma jiro meesha dagaal haduu ka dhaco waa fidmo ayaga aabbo iyo hooyo oo ahaayeen
kaabahooda ugu weyn uu mas-uul ka yahay madaxweynaha maamulkiisa dhammaaday ee hal sano iyo xoogaa xafiiska qaranka soomaaliyeed ku fadhiyo. isigana maalmaha ka mida maxkamad waa la keeni doonaa. meeshaas doorasho kama jirto, waa dad ninkaas u shaqeeyo, laakiin kulligood wax bay moogyihiin. dadka ay soo saarayaan ma ahan dad lacag xaaraan lagu soo saaray waay. aniga kursiyan u ordayay beeshayda beeshii oo dhan diyaar waay, dhalinyaro waayeel oday, laakiin 400 oo kun ayaa ninka la yiraahdo maxamed cabdullaahi farmaajo kursigay ku baxshay. kursi xiran waay, kursi furan maaha. nin ani adeer igu aadan oo shaqaaleyga London ahaa qurba joogta ayaa la soo diray. lacagta lagu soo diray waa lacagtii qaranka 400 oo kun. halkaas kursi waxay aad u kaafinaysaa, biyo dhaamin u samaynaysaa kumanaan reer hiiraan u samaynaysaa. baahi raashin iyo wax walba u goon kartaa. meeshaas inaad ka qayaasaan qiyaas lacagta ku baxayso. labo, sharci dhan ma jiro. maamul goboleedyada kale aan sheegi kari, guddiga doorashooyinka iyo madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii oo kulligoodba aqoon iyo cilmi iyo ilaah ka cabsi aan jirin, halkii kursi waxay madaxa kor dhigeen 75,000 oo dollar oo aan ku jirin diiwaangelinta musharax. CID $750 waay. hiiraan haddaad tagto 7,000 oo dollar waay. guddoomiyaha gobolka lacag uu leeyahay, madaxweyne ku-xigeenka lacag uu leeyahay, madaxweynaha lacag uu leeyahay, guddiga doorashooyinka lacag ay leeyihiin, taliyaha booliiska lacag uu leeyahay. war 750 CID 7,000 ee mareen. hebel dhiciso midkay dhaana taliyaha booliiska waa ninka mastermindka oo dulaalka ka ah oo kuraasta cidii uu lacag u shabto geenayo, walaa guudlaa walaa cali dabageed. aqoon everything. kuraasay soo saareen 3 way celiyeen, waxay dhaheen anaga shuqul kuma lehin. waxaa soo saaray guddiga doorashooyinka. waa been. dabageedaa diray, nin adeerkiisa u diray guddiga doorashooyinka, website-ku soo geliyey, waa boosti gareeyay. subaxii noo imaaday wuxuu yiri wax kama jiraan. duhurkii haddana isla galabtii waxay soo celiyeen isla kuraastii iyo odayaashii ay dhahayeen kuwaan oday dhaqameed ma ahan, reer hiiraan ma ahan, shuqul kuma lehin ay dhahayeen. hal kursi unbaa oday dhaqan lahaa. waxaa ku soo xigtay ninkii dhammaa ee avokaato sheeganaya, sharci yaqaan sheeganaya, ee mawlid mataan ee jebka ku jiro farmaajo oo farmaajo uu abuurtay. warqaduu qoray casirkii wuxuu yiri kuraastaas 3 waa soo celiyey, waxba kama jiro. subaxii isla habeenkii warqadii la soo celiyay haddana waa 3 mar waay. hal warqad madaxweynihii, madaxweyne ku-xigeenkii, guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal, guddoomiyihii oo maaragtay heer goboleed oo doorashooyinka iswaafaqsaneen. meeshaas waxaa kaaga soo baxayso maamul wada shaqeeyo oo system ku socdo inuusan jirin ee lacag leh eed. waxaa nasiib dare ninkii mawlid mataana oo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ku-xigeenka ah inuu asigii haddana isla kuraastii uu dhahay wax kama jiraan, uu subaxii haddana uu garwadeenka ah meeshii uu fadhiyey, miiska uu fadhiyey. waana wada aragteen. waa nasiib dare iyo aqoon xumo. kulleyba un lacag buu qaatay. wixii uu qaatana kulleyba wax xaaraan waay. waa wuxuu sadaqaysan karin, ku tukan karin, wax ka bixin karin waay. yowmal qiyaamana sugaysa waay. maxaa kacdoonka keenay reer hiiraan? dhaqan xumo, maamul xumo, diin la-aan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo hirshabeella keentay. 2, madaxweynaha maamulkiisa dhammaaday ee hal sano iyo xoogaa xaaraan ku fadhiyo xafiiska qaranka wuxuu ku talagalay inuu xildhibaano soo saarto. ma waalan yahay, ma fiyo yahay, waxaan ku tilmaamo ma aqaano. wuxuu ku quus qaadan waay aala sheekh iyo madaxweyne shariif
intii qofoo taageeraysa subixii codka markii la tegayna waddada uu maray aan aragnay markhaati aan ka naana waxaa kugu soo xiga xasan sheekh 219 xildhibaan oo masjidul shuhadaa iyo SYL uu ku kala tukadeen oo asiga gacantiisa ku soo saaray qaarkood kuraasta dhiig ku daatay lacagtii ummadda Soomaaliyeed uu geliyay markii oo doorashada la galay farmaajo oo ra'iisul wasaare raadinay oo madaxweyne ah meesha mabdiisa iyo mowqifkiisa iyo ujeedkiisa aan ahayn ayaa ilaahay nasiib ooga dhigay inuu wadanka madaxweyne ka noqdo aniga cabdiqaasim ka soo bilaaw lagu keena farmaajo madaxweyne aan abaal Soomaaliyeed u gelin ma jiro mar walbana idaacada waa ka sheega beenta ma idii karaan mida abaal Soomaalinimo ugu gelin lagu keena kan hadda xaaraanta ku fadhiyo hal san iyo xogaa mida abaal u gelin ma jiro Soomaalinimo waxyaalaha igu kalifay inaan musharax noqdana waa arintaas in dhalinyaradii la daayacay in maaragtay hooyooyinka la daayacay in badda ay ku gurmeen inaan cidno u maqneen inaan ceelna u qodneen inaan naxariis jirin tusaale inta madaxweyne meesha soo martay meesha ay degan yihiin iyo baarlamaankooda markaad derbiga hoos fiiriso waxaa degan dad masaakiina mar qoraxa barakicinayso mar rooba barakicinaya mar dabeela barakicinayso mar baahi iyo cudur kicinaya ilmahoodan waxbarasho ma haystaan nafsigaas waa nafsiga ugu horeeyo ee madaxweyne walba uu arkayo derbiga hadday soo fiiriyaan hoostooda intaasoo boqoloo masaakiina degan madaxweyne walbana kursi u imaada sar dheer baabuur bullet proof 100 oo maaragtay oo security ay ku sheegan ayaa magiciisiinay maxay horumar u gaari lahayn maxay successful u gaari lahayn nafsiga ummadda ay ka galayaan waa meel kale ha aadin derbiga madaxtooyada hoostiisa la fiiriyo sayidka ummadda si ugu dhibaataysan tahay ilaahay baa og marka wadanka cidna uma maqno ceelna uma maqno ra'iisul wasaarihii loogu talagalay inuu doorashada hogaamiyo ku dhawar adeego meelu iska fadhiistay horta Hirshabeelle magaalada Beledweyne la dhahay godob wuxuu ka galay aanan la soo koobi karin hal maalin ma tigin diyaaradu ku tagaa Puntland diyaaradu ku tagaa Dhuusamareeb waka Xasan Cali Khayre wuxuu dhaamo malaan galmudugay manabada baydhabo manabada jowhare manabada hal maalin Beledweyne ma tigin marka cuqdad iyo cadowtinimo aan ummadda reer Hiiraan u qabin ayaa labadaas ra'iisul wasaare isku bedeleen haddii alla idmane abaalmarinteedu waa helaysiin maalmaha kamid ah maxkamadda la soo taagi doona ra'iisul wasaare wuxuu ku leeyahay doorashan ku mashquulay civil society la shiray culimadiina la shiray ilmaadariisu la shiray cid kale oo la shiray ma jirto wili rag badan oo aan aqaano yaa xafiiskiisa joogo ilmaadariisa joogo wuxuu dhaaman ma jirto madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo xilkiisa dhamaaday uu ku abaal furay abaalna malahan marka inuu ku abaal furo waa noo fiicanta laakiin wadadii ummadda Soomaaliyeed iyo doorashadii ummadda ugu dhartay wadadii wada ayaan u qaaday marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa cidna idima maqno ceelna idima maqno madaxweynahan hadda waqtigiisa waa dhamaaday juhaalnimada jirto wadanka ka jirto aqalka sare way dhamaatay doorashadiisa waxay dhamaatay mar hore xildhibaanadiisa waa la keenay maanta waxay ahayd inay gudoomiye ku xigeen doortaan gacanta uu ku dhigo gudoomiyaha aqalka sare dawladda Soomaaliyeed inuu asiga maamulo maxamed cabdullaahi farmaajo meel uu fadhiistay aqoon ma jirto sharci ilaalin ma jirto war xildhibaanadii aqalka sare waa dhameystiran yihiin maxaa diiday inay intay fadhiistaan oo ay maaragtay gudoomiye ku xigeen ay doortaan ay gacanta ku dhigaan wadanka uu hadda ku tumanayo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayaga dambiyay ku jiraan kulligood waa dastuur ma yaqaanaan aqoon ma jirto dhibka maanta ayaga aabbi iyo hooyo u noqonaya hadda waa la doortay inay inta isku imaadaan
قدومي كحيوان دورتان محمد عبد الله فرماجين ساسو وحلك كوريجنا أيجا سي غارسيان أنت أقل كهوصل دورنا كدي من مركي أقل كهوصل دورت مدحوين أي دورتان دستورك شرعي وكاسا هذانا ومدي دستور كل رقمين شرع كل رقمين برلمان أو مالكتي أقل صلوا حاران كو إمادي متك هو صادن حاران كو إمادي وما ملينا فرماجن ولا جدين دونان أيجنا وح إيقاتين لا وحاران وحنا مصدقين سنكران وحنا مالكتي حج كم هذه كران مركو أمد سمال دحوم الشيء ودنك الله سبحانه وتعالى أوارها جرو العجاها دورشين كله بحش والنفسي أن إلهي أنكفوا عنه إن إلهي أصلا قلنا التوبة كأنه كحمدنا كشكرنا مساجد هذا لأن أفاتح الأمر ظالم كسوين محمد عبد الله فرماجو هل سنة إنتاس كفر إيماشا إنه إلهي أمدك الريحي كوان أو أقل كسر أو لوبا أنا إني هنتيان ما ملك قرن كصوماليات إن كاس قادن أيجنا إلهي هتص ودد صح هتص ولكن مشرح مدحوينه عبد الله حاشسات إسلام مركزنا قدومية حسبي دقائق الصوماليات وعايزين كل دردار مايا واستاجا دنتا تينتا يضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.